aad aad u mahadsan tahay haddii aan hal xabo ku darsado hadda saa sheegto dhan horta waa ruma waa jirtaa waxyaalo badan oo waxaa jirto xaggeena aan xukumi karo iyo wax xag alle iyo waxaan xukumi karin marka hadda dhibka badanaa dadka ay dareensiin waxaa waaye dadkii xag oo dibadda noogu maqnaa iyo dadka Mareykanka joogo xoogaa khilaaf yaraa jiro waxaa waaye meeshan sabar loo baahan yahay bifaasan tahay dadka qaarkood waxay u maleeyaan dadka inta inay wax ka xasdayaan ama waxay leeyahay maxaa ma ii dadaal laadahay ma la hadashid ma kan samaysid muxuu booskayga u soo bixi laayahay because waxay arkeen dad badan oo group 5 kan ka faa'iideystay oo diyaaradooda loo soo qoray oo haddaba inta imaado hadda bulshadan ku nool marka message ahaan fariin ahaan maxaan u sheegi karnaa dadka xagga joogo sidii aan niyadda ugu dhisno maadaama sanadkan saa u ogtahay 4 sano ka bacdi sharciga wuu isbedelayaa hadda dadkan oo xukumi doona insha Allah dad waa saa ka dhawaajisay oo aanan dadka soo galootiga badanaa siibo dadka madowga ama muslimiinta ana saa zaid u jeclayn marka maxaan kula tali karnaa dhihi karnaa bal iska sabro iska suga wixii ilaahay idin qoro waa kaas waa iska imaanaya haddana dadkii lagu sii maaweeliyaa intay xagga joogaan oo niyadda lagu dhisaa horta processka qofka markuu applicationka group 5 ku xareeyo haddii waxay ka qaldameen ayaga unba email kuu soo dirayo waad u jawaabi kartaa marka go'aanka ayaga iska leh qofkan inay kiiska approve gareeyaan markaas kadib markay kiiska ayagu approve gareeyaan waaxda dowladda Mareykanka u qaabilsan dib u dejinta United Refugee Admission Programka loo gudbinaya ayaga interview la yeelanayo markaas kadib ayagu waa kiisku waa uu ka wareegaya marka kiiska la approve gareeyo wixii ka dambeeya waxa uu kiisku ku wareegaya qaybtaas Mareykanka dib u dejinta u qaabilsan marka qofka applicationka ku xareeyay no way uu ama telephone wici karo ama email uu ku diri karo uu dhihi karo maxaa ku dhacay dadkeygii inaad sugta mooyaane wax kale uu ka qaban karo ma jirto dowladda ayay ku xiran tahay iyo waaxda Mareykanka u qaabilsan dib u dejinta sida ay kiiskaada ay u fududeeyaan laakiin qofka ku xareeyay waa uu ku dadaalay haddaba applicationkii ku xareeyay applicationkaada la approve gareeyay tilaabo kale uu qaadin karo isaga ma jirto markii kiisku soo dhamaado qofkii caafimaadka la soo mariyay kadib isaga dib loola soo xiriiraya dadka shanta qof wax ku xareeyay la leeyahay qofkii waa diyaar waan soo qaadaynaa gurigii ma u diyaaristeen ka bacdi markaas halkaas wax laga weydiinaya laakiin marka uu xareeyo oo la approve gareeyay iyo inta u dhaxaysa adiga markay wax ku dhamaadaan isaguna lama xiriiri karo iyaguna dib ulama soo xiriirayaan muhiimadu waxay tahay inaad sugto oo kaliya dulqaad ah muujiso waan ognahay Soomaalidana cudur degdeg la yiraahdo qabna wax loo maleeyaa wax kasta markii la xareeyo inay hore ka dhamaanayaan waxaan waa process qofkan dacwadii uu ku xareeyay ama group 5 ki applicationki waa uu ku diray intaas hadduu ku sameeyo wax weyn uu ku qabtay markaas wixii ka dambeeyo haddii lagu approve gareeyo waxay ku xiran tahay waaxda dowladda Mareykanka u qaabilsan dib u dejinta iyo sida kiiskaada ay u fududeyso qofka ku xareeyana emailna uma diri karo mana la hadli karo oo ma dhihi karo maxaa ku dhacay kiiskayga iyo halkoo maraya iyo ma dhihi karo